maanta oo ah maalin sabti ah taariikhdu ay tahay 10 bisha September 2022 waxaan rabaa shir jaraa'id inaan uga hadlo oo ah xaaladaha wadanka ka jiraan khaasatan maalmahan cabashooyinka jiraan waxaan u kala qaadaynaa qodobo aan kala qaadaynaa waxa kamid ah qodobka ugu horeeya oo ah inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ah baaqaas mudane madaxweyne waxa kula hadlaya wax waaye anigoo ah malaaq cali malaaq maxamed malaaq weheliye ah oo duubabka dhaqanka Soomaaliyeed kamid ah ahna duubabka mudulood waxaan rabaa inaan si toos aan kula hadlo waxa jirta maalmahan cabasho aad u weyn oo aad u darnaa jirto oo bulshada Soomaaliyeed ay qabta khaasatan beelaha wadankan degan beel kamid ah mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay 2016 ilaa 2012 marka dawladnimada dalka hogaaminaysay waxaa jirtay beelahan waxay ka cabanayeen cabasho ay ka cabanayeen iyo cadaalad darro iyo xuquuq ay lahaayeen ay waayeen cabashadaas idoo taagan ayaa xilka ka dhamaaday mudane madaxweyne waxaa yimid madaxweyne farmaajo yimid meesh ayada lafteedu ka bilaabay haddana adaa 2000 iyo waxaa timid 2020 ka soo laabatay cabashada meesheedii taaganta mudane madaxweyne hadda ka hor beeshan balana ka qaaday balantaasoo ah inaad cadaalad u sameynayso inaad waxay tabanayaan ay sheeganayaan inaad u sameynayso mudane madaxweyne adaa waxaa dhihi jiray calool waxay ku bukata laguma daaweeyo maxaa yeelay annaga waa bugnaa beesha waa bugtaa sheekh shaab culamo aqooyahan wax garad meel kasta adduunka ka joogaan qalbigay ka jabeen muraayada 3 milyan dad ka badan ayaa hal maalin qalbiga ka jibisay qalbigaas si uu ku soo noqdana waa adkaanaysaa anaga madaxweyneena tahay sharaf anaga mudan tahay ixtiraam anaga mudan tahay inaan kula shaqeynaa waajib ah laakiin cabashadayna wax waaya dhulkay jabtay si ay ku soo laabatana waa adkaanaysaa mudane madaxweyne tareenka baska anaga waana dardaray tareenka baska aa wadatay waana dardaray daaqadaan ka dhacnay saa ku soo laabana waa adkaanaysaa waxaan ka rabnaa ummadan xuquuqdeena inaad soo celiso sharaftaada iyo karaamadeedana waa ilaalinaynaa tayna ilaali waxaan ka codsanaynaa tareenkaada inaan mataqaanaa soo raacno haddaan soo raacaynin waa noo sheegaysaa waxaan ka rabnaa qalbiga bini'aadanka waxa uu ku dhinta soo naqamaya haddaanan la dhayin oo la nadiifin muraayadoo kale waaye muraayada waxay u bantaa nadiif annaga waxaa ka codsanaynaa mudane madaxweyne sideeda dowladnimada ilaalisay u baahan tahay waxaa kamida madaxtinimada qofka bini'aadanka xuquuqda uu leeyahay ama beelaha xuquuqda leeyihiin haddaa loo diido haddii la duufsado haddii laga xaqiro haddii cagta la mariyo waa dareemi kartaa dhibaatada ee leedahay mudane madaxweyne waxaa ka codsanaynaa si degdeg ah inaa xuquuqdaas miiska ah soo saarto beesha meeshay joogto gudaha iyo dibaddana way soo taagan tahay damiirkooda waa kacsan yahay dadnimadooda waa kacsan yahay waxay u baahan yihiin inaa xuquuqdooda soo celiso taas waa ka codsanaynaa intaas madaxweynaha waa dardaarankiisa waxaa kaloo dardaaran u dirayaa beesha u diranaya gudaha iyo dibadda joogto waxaa ogaataan dagaal waxaa idinku socdo oo isirsifeen ah waxaa idinku socdo dagaal xarbul fikriya ah waxaa idinku socdo dagaal cunsuriye ah idinku socdo magaciina waa lumay sharaftiina waa luntay karaamadiina waa luntay bulshada gudaha joogta tan dibadda joogta waxaan ka codsanayaa oo baaq u dirayaa idinkoo midnimada sharafta karaamada dowladnimada ilaalinaya amniga xasooladiina ilaalinaya waxaan idinka rabaa inaad midowdaan aragtidiina fikirkiina dhaqaalihiina aad midaysaan oo hal go-aan aad qaadataan oo talada aad isla wadaagtaan waxaa idin faraya haddaad qaadataan waad ku guulaysanaysaan laakiin haddaad diitaan waa ku jabaysaan dagaalka idinku socdo waa dagaal oo mataqaanaa mid loo dul qaadan kara ma ahan magac dhumay sharaf luntay karaamo luntay dadnimo luntay damiir lumay idinkaa idin laga rabaa sidaa qabkiina u soo celin lahayd idinkaa idin laga rabaa meel kasta aad joogtaan annaga waxaa u taaganahay inaan habeen iyo maalin sharafta ilaaliyo karaamada ilaaliyo dadnimada ilaaliyo idinkaa rabaa feelka gadaal inaad soo gashaan oo aad talada qaadataan waxaa idin fara haddaad qaadataan waa guulaysanaysaan haddaad diidaanna
qiso waxaa jirta oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku yidhi heer banu israa'iil man dhihi jiray ayaa waxaa la yidhi dhulkan beerahan jooga gala ee beeshaan fasha markaasay dhaheen rabbiyo anigu dhulkan geli mayno mana doonayno mana la dagaalamayno heer banu israa'iil qibdiyiinta nimanka la yidhaahdo marka waxaan rabnaa ay dhaheen ilaahay subxaana wa tacaala adiga iyo rabbigaada nabi muuse waxay ku dhaheen idhab anta wa rabbuka faqaatila inaa hawna qaaciduun ee dhaheen adiga rabbigaada tagay dagaalamay dhaheen marka ilaahay subxaana wa tacaala cuquub oo wuxuu kusoo riday oo tii 40 sano ay tii saaskaa dabdhaan shirqoobayeen marka haddaa tiihaan aad rabtaan inaad ku jirtaan 40 sano ku jirto raalli ku ahaada dulinimada raalli ku ahaada imaa haddii kale aragtidiina fikirkiina ha shaqeeyo midnimadiina ha shaqayso xuquuqdiina waa inaad u istaagtaan waa inaad af iyo maskax iyo caqli iyo dhaqaale aad ku dagaalantaan idinkoo nabadgelyada ilaalinaya amniga dowladnimada sharafta ilaalinaya intaasaa idin farayaa wax kale ma jiraan waxaan u baahannahay bulshada soomaaliyeed meel kastaa joogto qowmiyadan dagaal waxaa ku socdo oo mataqaanaa nuuc kasta u jiro bulsho weynta soomaaliyeedna haddaa gar daranahana waana qaban kartiin haddaa saxanahana waana qaban kartiin annaga dad ma dulmayno qofku xadgudubmayna dad oo deegaana oo meesha loogu yimadaanane xuquuqdayna waxaa u baahannaha habeen maalin waa u taagana cid aan ka helayna ma jirto ilaa aan ka helayno naf iyo maalin maskaxna waana u dagaalamaynaa nafteenna waa u horaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.